السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسور بعد القناة كيغ مناس وبلاشين مناس حبتي سيتين في عنتي واني السلامي ملو بدنيا ذاك جوجتين كسور بعد مقال عصب maanta muuqaalka aanay wada waxa waaye maanta xarba inaan la qaybsado video oo aan rabay inaan suubiyo videogan oo ku saabsan adeegi isbuuca how much I save garay. Okay, hadii hooyo aad tahay waxa u baahan tahay nidaamkaas oo ku saabsan ina wax save gareeni kartid. Okay, you don't need ina suuqa aadid ana lacagta haasatid in soo spend garaysid. So aniga marka xarba inaan la qaybsado sida nidaamka aan u save garaysta lacagtii waxaan ku noolahay wadanka Canada ayaa ku noolahay. So everything had wuxuu u noqday wax waliba qaali u noqday ana only Canada adduunka naasasay hadda. So marka waxa waaye hadii uu adduunkii uu wax walba u qaali u noqday so ma ahan in adigana aad ka fikirtid waxyaalaha aad save garaysan kartid maadaama aad tahay oo hooyo aad tahay oo hooyadana uu guriga uu ku dhisan yahay waa inay ogaataa wixii soo galo ama wixii ka baxa ma fahanteen. So sidaas darteed insha Allah waxa rabaa isbuuc how much an adeegi aan save garayno bishi raashimada weyn ka loo baahan yahay laakiin isbuuci wixii aan save garay insha Allah inaan ila qaybsado. So aniga waxaan soo qaataa grocery-ga $200 waa kana $200 aan tusay insha Allah $200 ayaa soo qaataa grocery bill kasta oo isbuuc kasta. Okay, no bishi isbuuc kasta $200 soo qaataa. labadaas $100 waxa aan isku dayaa ma bishi ina isbuuci ina $100 aan ka save gareeyo ama $50 aan ka save gareeyo waxa ay ku xiran tahay situationka aan markaas aan ku jiro. So hadda let's say ana maanta isniin aan duubaya videogaanayto waxa ay ku saabsan tahay sida u save gareeyo lacagteeda grocery-ga isbuuca. So isniin soo adeegay isniin ilaa isniin adeeg ma aaday isniina soo adeeg isniinteeda kale ayaa adeeg aadaya. That means ma ku noqonayo grocery-ga isbuuci loo mar ma ku noqonayo hal mar soo adeega waa isniin to isniin masadeeta jimca to jimca sabti maanta ku soo aad ina soo adeega maanteeda kale aadaya. Okay, so rule number 1 waaye saddex rule aan haya. saddexdaas rule waxa waaye rule number 1 waxa waaye before adiga grocery-ga aadin make sure inuu meesha raashinka aad dhigatid inuu nadiif ku ahaado. waxa waaye nadaafada ma ahan because nadaafada ku jirta no nadiif inuu ku ahaado waxa aan ka wadaa ina ogaatid raashinka kugu jiro meesha waxyaalaha ka muuqan ka bacdi grocery-gaaga aad. rule number 1 filinjeerkaaga ha ku dhaqnaado. Never go to the grocery adoo filinjeerkaaga oo wasakh u yahay. You know why? Because filinjeerkaagu wuxuu ku jiro ma ogtid adiga waa iska soo baxaysa waxa iimaanaysa grocery-ga and then okay waxa rabtida soo arursanaysa $100 mise $200 haysataa mise $300 haysataa and then kulli waa soo dhameynaysa. You see, that's why reason ku fiican yahay filinjeerkaagu oo nadiifsan ina baxdid so that you know what you have and what you don't have. Okay, rule number 3 ana maxalaha waraaqad ku qoro raashinka u baahan tahay ama si telefoonkaaga notes ayuu leeyahay notekaaga ku qoro waxyaalaha u baahan tahay. Never okay habixin adoo telefoonkaaga mise notekaaga maskaxdaada ina aad ku haasitid waxyaalaha u baahan tahay waxaas meesha ku qoran mise waxaas xasuusatid la soo gado. Sometimes waxaan haynaa wax oo maskax waxaan haysanaa oo wax hadii qoran hilmaamis adaysa oo kaas ma haysti alla mu xasuustay waxaas dhan ka hortag. So saddexdaas tamahan another one on you daraa afar kaar bangi hadii ha qaadanina because aniga waxa jeclahay cash ina u qaato grocery-ga. Do you know why cash ina u jeclahay ina u qaato? kaarka bangiga lacag badan kugu jirto grocery-ga aad waa soo martay dhiida soo siisay. Okay, you don't even know how much you spend at that moment that you're at the grocery-ga aad joogtid. Can you believe it? Because kaarka waa isticmaalayso waa soo marinaysaa. That is one thing I don't like in a car qaato. Long time 2021 ay ugu dambeysay kaar aan grocery u qaato aan ku soo adeego. Okay, so cash aan qaato always. Cash ka reason-ka u qaadana waxa hadda $200 wata. Okay, labadaas $100 waxa aan rabaa $50 ina meel ka dhigo hal isbuuc isniin waa. Okay, $50 ina meel ka dhigo because hadda waxa waaye maanta grocery-ga aan doonayna biri talaadada ay tahay haduu ila yiraahdo iskuul aan la furaya. That means waxyaalaha aan rabo ya ina ogaado waa especially wixii adeeg oo iskuulkan ina soo adeega waa. So insha Allah ana guriga dhaqaalihiisa hooyo ayaa hayni karta
not only hooyo labada qof isqabaan waa inay isfahansanaadaan waana inay isla socdaan wixii guriga soo gala iyo wixii kale haddii aad dhahdid balay maxaa lahaay waxa rabaa iska suubinaya adigana ilmahaada uma save garaysanin adigana wax ma save garaysanin ma fahantay soo hadda marka waxa waaye labadeena boqol oo grocery-ga u qaadanayno oo kontonkaas ka save garaynayna gasaca haystaa insha Allah gasacaasida guriga markii aado waan i tusaaya videoga sidoo eegay gasacaasida waxa ay ugu jiraya shilimaanta aan gashtaa in shilimaan oo isoo haro aan maxaa lahaay saving-ka lacagta ana $50 hadii soo haro $20 hadii soo harto $30 hadii soo haro waa ku ridaa okay that helps me hadii aan wax u baahdo okay not only aan ina wax u baahdo ilmahayga wax u baahdaan oo laakiin wax oo back up there's a wax oo la dhahay emergency oo la dhahay oo ku dhici kara anything ku dhici kara anything gas oo ku dhici kara you have to have a back up you know back up in u haysatid waa waxa sayto dhigi karto waxaana ku bixin karaa okay laakiin hadii aad dhahdid okay xaajigaaga 200 ku sii 200 dhan waa soo dhameysay grocery ku soo aaday guriga imaaday hadana isbuuci kala ana isbuuci adoo gaarmandhay soo adeegatay khamiis eber waa raashinki hadana lacag luusay hadana 200 soo dhameysay how much are you spending in 2 weeks $400 ay ka bixiso can you imagine do your math you know so that means you are wasting your money honey okay lacagta waa khasaarinaysa waxa ku khasaarinaysa because xisaabtii iyo wixii ku soo galaya iyo wixii ka baxay ma ogtid taasna waxa keenaysa careless if you are a careless atahay akala jeclan wixii ku soo gala wixii kala waa ka baxayaan fahamtay soo marka insha Allah waxaan dhahay asxaabtaada la share garay aniga 2021ka ayaa bilaw ina savings subiyo saving kana aad iyo aad ugu faa'iiday hadii xitaa oo maxaa lahaa isbuuci oo $210 $20 xataa aan save garay goal ay tahay but I just don't like ina isband garay $200 oo dhan aan qaatay ina wax ku soo isband garay ma jecli okay soo marka 2021 before 2021ka beemani sheega $200 ma qaadan jirin kaara qaadan jiray kaarka waxa xasuustaa grocery $300 $200 $400 content adiga like you know waxyaalo oo maskaxdeeda galayna anagoo family yar on ahayn ina soo isbandgareyn jiray so after that I was like no hell no you know I am not going to spend this much money no more so marka ana alxamdulillah hadda waxyaalo badan ka bartay saving-ka you know YouTube SUBA like a research SUBA and it help way caabi you know so maxalla also waxa jira dukaamo waxa jira oo kala raqiis food basic hada aniga Canada and Freshco I feel like it's too much wixii okay you and maxalla meel kale Walmart-ka they scam you too a lot of money waa ay xitaa you know waxyaalaha muhiimka ahaan ma ogiye I don't like ina mar walba oo grocery ku aado so my favorite grocery store oo ana jecla ina wax ka save garay waxa waay food basic maxaa lahaay I feel like kastoo lacagtiisa qiimihiisa inuu jaban yahay ana also aan wax ka save gareyn karo so insha Allah hadda grocery-ga joognaa waxyaalaha u baahanaa aan soo gadanayna guriga aadayna and then video waan tusaya iyo wixii aan soo save gareey lacagtan waan tusaya insha Allah marka waxa videoga waxaan rajaynaa inuu dhiirigelin uu noqdo hadii hooyo aad tahay lacag meel dhigo lacagti xaajiga ku siiyay meel dhigo maxalla hadii aad ay shaqeyn hooyo waxa jira ilmahooda korsadaan oo ilmahooda haystaan oo inuu maxalla nimankooda ka sugayaan inay u soo shaqeeyaan ay wax siiyaan haduu xaajiga ku siinayo $200 that's enough $100 ku siinayo ka jaro war $20 $10 meel ka dhig hadii ratid it does not matter laakiin wax save garayso wax yar oo adigu ku anfaca save garayso hadii aad tahay waxa jecesha ina aadid cashi ina aad asxaabtaada maxalla maanta waxaan leeyahay cashi ina aad raba $20 si ma dhahay ceeb you know lacagtii oo grocery-ga ku save garayso ka soo baxso hadii aad rabtid nails ina aadina oo nail-kaaga soo subsatid ana nails ina soo subsada rabaa isi ma dhahay waa ma ceeb ana ka soo subsana nails-kaaga lugaha ka soo dhaqo wajiga ka soo subso you know skincare maxalla wajiga kareemadaada xaaji kareema rawa inoo ma dhahay no waxyaalahaas dhan waa ina ka fikirtaa adoo grocery-ga lacagta lagu siiyay intaas ka baxsan kartaa akhli yeah grocery-ga lacagta lagu siiyay intaas ka baxsanaysa ama hadii aad qof waxaas dhan haysatidna ilmahaaga ayaa wax ugu tar kartaa oo saving u dhigi kartaa ilmaha waxa jira wadankan ina oo lacag loo aruuriyo oo bil kasta loo dhigo insha Allah hadii aad awoodin oo bil kasta u dhigi karin grocery-gaaga u dhigi kartaa $20 $10 $30 wax ay haysid war wax badan ay noqonay meel la iska dhig aaday soo aruuri meel la dhig
$10 meel la kurid aad waxa arkay adoo hana ka baxsanaya because Soomaalidina intii meel wax dhigano ugu soo wareegata lacag la'aanka oo nagasho meesha lagu noqon never go back to it and just maxaan dhahay waxa suubinaysaa ana مالك don't go back to it hadii oo xataa oo markaas u baahanta haka baxsanin u baahanta ya haka baxsanin waayo maxaa laha waxyaalo waxa jira oo arkaysa soo jeclaanay waxa dhay kan u baahan oo ka baxsan marka saving waxas maahan saving waxaan wixii meel aad dhigtid hadii maantas wax lacag ku hayso lacag ma haysti ma haysatid bo waxa ku tashana saving kan aad save garaysatay ma fahantay ku tasha only marka aad u baahan tahay aad dhaysid okay sanadkii intaas save garay hada grocery-ga aadayna markay ku soo noqono wixii aan soo save garaysanaan tusaaya insha Allah adeeg aan soo gadan waa arkaysiin ana marka waxaan leeyahay video kaysan like noo saaro noo share garay noo subscribe garay insha Allah ana maxaa save your money okay don't waste your money أنا محلها yeah you know it's just how ما تقانا I just wanted to let you know girl you know if you're a young mom out there very young mom out there there's a وحيالة بدن أو محلها again saving أو وحيالة بدن حاجة أو هذا normal women but it's not normal that you're wasting your money okay so inshallah like no Sarah هذا let's go to the food basic and then هذانا adeegana yar and then wixii soo qabsano aan la share galayna insha Allah yay asxaabteeda hadda waa soo baxnay videoga waxaan u maleeyaa inaa war inaan ugu dilayaa u maleeyaa soo waa soo baxnay ana food basic aan u socdaa bacayaasheedan wataa ana meesha dukaamada bac ma la siiyo inaa bacaya inaa gadatid waay but laakiin bacayaashan haviga guriga dhana ibi waxaan soo always waxaan jeclaa in order to save the money bacayaasheed ina hor u soo qaato sidii oo hodho u guritilay so inshallah hadda food basic aan galayna bismillaahir rahmaanir rahiim la si maanta waxaan soo save gareeno iyo 200 aan wadano iyo wixii aan soo hara haduu ilaahay yiraahdo goolku waxa waa ina wax leela dhiga it doesn't matter how much it is laakiin ana hadda waxaan arkaa target keyga waxa waaye ina $50 oo save gareena maanta insha Allah waxaan rajaynayaa muuqaalkan ina aad uga heshiin amse wax aad ka faa'iideen hada su'aal amse wax aad qabteen comment ugu soo qor waan igu soo jawaabaya so hadda inta waxa imaanay tufaaxa imaanay ana tufaaxa ilmahayga aad u cunaan ma sha Allah aan also anigana diet eega aan isubnooya so tufaax badan oo baahnaa tufaaxan soo qaadanoona marka ma sha Allah tufaaxa aan soo meesha tufaaxa imaada bacayaashan tan wax badan soo goostaa sidii oo guriga so hadda inta waxaan tusooyaa qiimahaanayta liin dhanaanta $4 ahayd liinta yellowga hadda $2.98 way so liinta oo iidane oo green $3.88 way واي markay siisay u kala qaadsan yihiin always price kala iska fiiriya markay arabtid inaad wax save garaysid kii oo raqiis ku noqdo ala soo qaatano maarwad soo liinta jaalada raqiis ahay maanta soo iyada soo qaatay I don't like it ina wax over oo suubiyo I like it wixii oo las ina soo qaato waa soo adeegane waa kaas ma sha Allah waxa u baahneen weekend isbuucan la raashinka u baahneen marka waxa insha Allah markii oo meesha aan tagno wixii noo soo dhahay waxa seeto guriga imaaday intaan oo dhan soo gaday food basic aan aaday wal amxalay dollar store kan waxyaalo ka yar soo qabtay insha Allah waa arkaysiin laakiin alaab badan aan wadanaa oo hal isbuuc yahay isbuuca kale laga yaabaa 200 marka aan qaato wax badan ma soo gaday hadda kan amal dollar store kan soo gaday lavender waa dhulkan ku dhaqdaa aad u carfaaya waa jeclahay وكاس dhulka waxaan jeclahay inuu carfo aan also waxa ka soo gatay ahayd saliidan waxa isticmaalnaa an olive oil la isticmaalnaa raashinka waxaas aan ku karsanaa soo aroon saliid kalena raashin ku kariyo ana waxaan dhaladana soo qaato waxa rabaa buskudka ciida ina ilma uu dubo oo uu dhigo meesha sidii koob oo shaax mise caan mise wax inuu uga cabaan soo saasi jecelihiin marka ma sha Allah adeegeen isbuuci waa kaas wax badan oo soo gadnay isbuuc kale hadda insha Allah wax badan ma la soo gaday wax yar la soo gadaa marka asxaabteeda grocery-ga intaana ku soo adeegtay dukaanka food basic-ga $142.84 so and then intana waxa waay dollar store-ka aaday waxyaalo kala soo qaatay $13 iyo 23 cents way so kulligood waxa waay $155 97 cents isku daro 97 hadii rounded ka dhigo $156 way
So it was a good deal I had. $50 is hard because $5 oo shilimaana boorsada ku watay oo shilimaanta ahayd oo like you know saac ama 25 cent yaashan badan iyo aruurin camal ma iska tuura boorsadan ku ritaa meesho and then ka bacdi maxaa la dhahay saan camal markii oo rounded waxa aan rabo inuu ku darsado aan ku daraa so $50 waa hayna insha Allah waan tusaya sigane so yeah this week we saved maxaa la dhahay $50 so that's how I like to save garasta insha Allah you know and it's easy and all you know wixii gurigaaga u baahan tahay wixii kala so make sure in iska waste gareynin yeah that's it waa kana $50 oo adeeg maanta ku soo haray and then maxaa la dhahay that's it you know we did it $50 had soo hadan isbuuc kale $50 you know bishii laga yaabaa $100 laakiin hasha bil ina $150 meela save garan mise $200 so insha Allah markaas xaabteeda waa kana gasaca oo ku rita lacagta shilmaanta waxa jirta meel oo markii wax badan ay ku noqdaan bangiga oo la geeyo oo lacag kugu soo sarfanayaan sarf ahaan oo lagu siinayo so marka ma sha Allah tabarakallah waa kaas you know maxal lahay waxa rabta ku ridinaysa hadii ahaasan gasac noocan amal gasac soobsan wax soobso you know ma sha Allah tabarakallah saving aad u fiican yahay markaas xaabteeda lacagta oo September bishan September lacagteeda la inta lagu ridaya September markay dhamaato wixii oo noo save gareysmo ka bacdi meel kale oo jirto aan gashto meesha sala gelinaya bal raayna waxa bil kasta wixii la save garay inta lagu xaraay islamaad wixii aan helno so insha Allah muuqaalkeen intaas uu ka eegaya hadii aan muuqaalka ka heshay like share ka subscribe ki comment دينعنا هذا مقال كان معهن مقال كيس كانت اسكول كل مانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما انتين باي في امان الله